warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Still, I am recording your first lecture, so I hope you are doing best and safe from coronavirus. So instantly, we have to start urine examination. So today we will talk about the gross examination and chemistry of urine. In the second section, inshallah, we will discuss the urine microscopy. aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada. Waxaan duubaynaa sectionka ugu horeeya ee urine examination ku saabsan. Urine examinationka waxaa loo kala qaadaa 3 qaybood: gross examination ama physical exam, iyo chemistry, iyo urine microscopy. Marka lecturekeena koowaad wuxuu ka hadlayaa examinationka urineka ee ku saabsan gross and chemistry of urine. So intana waa objectivekeena. waxyaabahan ka hadli doono waxaa kamid ah physical examinationka, colorka, iyo abnormal colorska, specific gravityga, concentrationka iyo waxyaabaha la midka ah. So intana waa iska introduction weeye. maxaa loo indicate garaystaa in urine analysis la diro oo uu qofku baaro urinta. Hadii goor sideen wada ogsoonahay urinku waa product of urinary system. sidaa awgeed qofku marka urinary systemka wax laga ogaanayo la doonayo urinary systemka wax laga baaro ayaa la dirtaa urine analysis. markaas ay doonto ha ahaato ama disease of urinary tract ha ahaato ama systemic disease ha ahaato, kaliyaha saameyn ku leh urinary systemka kale. labadaas ugu muhiimsan. waxyaabaha kale la eegi karo waxaa kamid ah qof doonaya in metabolic byproducts laga eego kaadida, kuwaasoo tusaale ahaan dadka leh tusaale ahaan toxic substances ka qaatay ama drugs qaatay ama medicines lagu muday productskooda kale kaadida iyagana waa laga eegi karaa. markaas main disease indication waxyaabaha ugu muhiimsan ee urinta loo dirto sidaan sheegnay: urinary tract infectionska, kidney diseaseska, and systemic diseases that could affect kidney function. maxaynu doonaynaa inaynu ka eegno urinta? waxaan doonaynaa inaynu ka eegno principally laba wax baynu doonaynaa inaynu eegno: ama wax byproduct oo kaadida la socda inaynu eegno, ama inaynu eegno urinta lafteeda physically astaamaheeda, chemically astaamaheeda, iyo microscopically astaamaheeda. saddexdaas baa waxaa la isku yiraahdaa examination of the urine. saddexdaas badanaa la isku yiraahdaa examination of the urine. waa physically, chemically, microscopically. waxa ugu muhiimsan microscope-ka, then chemicalka waxaa imika aad aan loo isticmaalin berigii hore, laakiin halkii lagu bilaabay ahayd gross examinationka ama physical examination ama microscopic examination. Okay, waxaan ku bilaabaynaa physical examinationka. waxyaabaha physical examinationka laga waxaa kamid ah colorka, appearance-ka, specific gravityga iyo waxyaabaha la midka ah. marka physical examination urine loo sameynayo, principally waa in qofka laga soo qaado ilaa 15 ml oo urine ah. sidaan horeba u sheegnay, carruurta yar 10 ml waa la aqbali karaa. haddii marka culture uu ku jiro meesha, marka ugu horeysa waa in cultureka laga fur yeelo. waa in cultureka la door bidaya marka la sameynayo. The sample must be cultured first or separated into a sterile container for microbiology before routine testing. intaan routine testing la sameyn, you have to culture first. berigii hore waxaa xoog loo isticmaali jiray visual characteristics, waxyaabaha ishu arkayso, ama microscopically waxay ishu aragto, ama gross examination. maxaa kamid ah colorka, appearance-ka, clarityga, odorka, volume-ka, kuwaasaa kamid ah. laakiin imika intaan dambe microscope soo baxay xoog looma isticmaalo, dhammaantood xoog looma isticmaalo. principally waxaan doonaynaa inaan dul istaagno markaa kuwan, colorkii, claritygii, odorkii, concentrationkii iyo wixii. let's start with the color. sida caadiga ah urinta colorkeedu wuxuu ku xiran yahay concentration, hadba waxaa ku jiro ku xiran yahay. laakiin sida caadiga ah kaadidu waa pale to pale yellow. sida caadiga ah the color may vary from pale yellow ilaa dark amber ama amberka oo kale. colorku wuxuu ku xiran yahay urochrome means urine, chrome means color forming substance. marka kolba waxa colorka sameynaya ee kaadida ay ku xiran. waxa ugu badan ay urinta pale ka dhiga yellow-gana waa bilirubin. the more pigment is there, haddii pigment fara badan uu meesha joogo, the deeper color will be. colorku marka uu sii xoogeysanaya, uu sii awoodeysanaya, marka color fara badan bay yeelanaysaa kaadidu. marka a lot of factors baa saameyn ku leh waxyaabaha colorka bedeli kara ee wax kusoo kordhin kara. waxaa kamid ah tusaale ahaan medications dawooyin qofku qaato
oo productskoodii ay la socdaan because kelida laga soo saaraya waxaa kamid ah dietkii, waxaa kamid ah chemicals kale oo jirka si uu usoo gala ama jirka dhexdiisa ka samaysma. waxyaabaha kale isna kalarka saameynta kale waxaa kamid ah pH of the urine oo in qaybta chemistry ku arki doono insha Allah taala. iyo haddii ay jiraan coloring factors. kaadidu haddii pale tahay ama ay colorless tahay yacni wave bilaa color oo biyaha u dhow hadii goor waxay ka timaadaa in dilutionkeedu uu farabato. marka waxyaabaha kaadida dilutionkeeda badin kara waxaa kamid ah diuretic in qofka lagu daweeyey, waxaa kamid ah fluid fara badan inuu qaatay oo excess fluid excrete garaynayo, waxaa kamid ah waxyaabaha natural diureticska sida alcoholka, kafeyga iyo waxyaabaha lamidka iyo qofku inuu leeyahay diabetic insipidus ama diabetes mellitus. kaadidu hadday rer tahay waa hematuria marka dhiig baa la socda, ama waa hemoglobinuria oo hemoglobin baa la socota. bimacnaa dhiig markaan leeyahay red blood cells baan ujeedaa, hemoglobinna red blood cells burburi baan ujeedaa, ama myoglobinuria la socota ama myoglobin baa la socota. marmarka qaar waxaa jira qofku hadduu leeyahay porphyrinuria marka waxaa jira haddii porphyrin fara badan ay soo raacayaan ay kaadida soo raacayaan wey kaadida waxaa kanaysaa port wine yani waa nooc khamriga kamid oo kale. marmarka qaar kalarka kaadida isbedelo waxaa kamid ah inay ku jiraan complex substances oo proteins oo la yiraahdo yani anthocyanins. intan oo dhan waa iska waxa weeyaan waa sharaxaad guud, laakiin innaga hadii goor inta microscope iyo chemistry soo baxeen si xoog uguma xisaabtano yani kaadida kalarkeeda xoog uguma xisaabtano haddaan casaan ahayn xoog uguma xisaabtano. waxay ku xiran tahay yani in kalarka kaadida isbedelaya waxay ku xiran tahay amount of RBC jooga meesha, amaba yani other pigment, amaba pH ka kaadida, ama length of contact between the pigment and the urine, iyo intii in leego pigment baa kaadida contact la sameynaysa. waxyaabaha kale yani haddii urine to acid tahay waxa ka bedeli kara waxaa kamid ah haddii for example acidic urine la soo saaro hemoglobin fara badanna ay ku jirto, hemoglobintu haddii waqti qaadato way casaanaysaa. maxaa yeelay way burburaysaa dabeetana hemoglobin baa soo baxaysa, carbon dioxide baa isqabsanaya. marmarka qaar iyadana waxaa jira waxyaaba kaadida black u bedeli karo alkaptonuria la yidhahdaa. marka haddii for example homogentic acid ay kaadida la socoto la soo saarayo because maxaa yeelay homogentic acid waxay kaadida u soo raacaysaa enzymekii homogentic acid oxidase baa maqan kaasoo yani mediate garin jiray certain catabolism of amino acids. marka haddii kaasoo alkaptonuria la yidhahdaa waa xaalad caana taasoo kale jirtana waxaa laga yaabaa qofku inuu dark urine yeesho. ugu dambeyn waxaa jira haddii qofku melanoma qabo ama kansarka skinka ku dhaca certain melanogenes ayaa la socda. marka haddii kaadidu xoogaa banaanka taalo melanogeneska waxaa loo bedelayaa melanin, marka iyaguna way midoobeynayaan kaadidii. lastly waxaan kusoo gabagabeynaynaa haddii kaadida kalarkeedu uu xoog u badan yahay pigment fara badan baa ku jira. pigmentkuna hadduu black yahay alkaptonuria, hadduu red yahay ama hemoglobinuria ama maxaan ku rahdaa hematuria ama saas in lagu xisaabtamana. laakiin mar walba ogaada yani qaybta microscope markaan RBC ku aragnay inuu si fiican aynu si cadin. waxaa jira certain chemical substances iyaguna kaadida soo raaca dyes jirka loo isticmaalo iyaguna kaadida soo raaci karo kalarka kaadida wax ka bedeli kara. cuntada iyo kale vitaminada iyo kale iyaguna wax bay ka bedeli karaan. the second part clarity waxa weeyaan intee in leeg bay kaadidu tahay clear wax laga dhex arkayo. clear waxaa la marka shayga sida biyo oo kale shayga ka dambeeya la arki karo. marka kaadidu sida caadiga waa clear weeye. haddii clarity uu isbedelo waxa la dhahaa cloudy ama hazy baa la dhahdaa. waxyaabaha ugu badan ee ku jira marka waxaa kamid ah haddii kaadida ay ku jiraan amorphous substance waan dhigan doonaa, haddii kaadida ku jiraan white blood cells, haddii ku jiraan bacteria, haddii ku jiraan yani epithelial cells, waxyaabaha noocaas haddii kaadida ku jiraan yani kalarkii bay wax ka bedelayaan iyo borotiinno fara badan iyo waxyaabaha lamidka. marka urine can be cloudy from the presence of leukocytes or epithelial cells. marka haddii aad ka shakido waa inaad microscope ka geliso oo aad dabeetana eegto inay WBC iyo epithelial cells iyo waxaas ay la socdaan, dhegeysta gelin sadoo hubisa in borotiinadii iyo wixii iyagana ay la socdaan. mucuska oo kale hadduu mucus fara badan kaada la socda isaguna hazy buu ka dhigi karaa.
fat fara badan hadduu la socdo isaguna milk appearance bay noqon kartaa. Odorkii baa isaguna saameyn leh ama urtii kaadida oo iyagana physically la eegi jiray berigii hore, laakiin hadda it's not important, muhiim maaha. waxyaaba odorka kaadida bedeli kara waxaa kamid qofka hadduu macaan leeyahay ketones fara badan baa soo raacaya. haddii bacteria badan ku jirta jirkii urinary tract ur iyo dheecaan uraan wanaagsaneyn ayaa soo baxaysa, ama yeast fara badan hadduu halkaa ku nool yahay. Congenital disorders hadduu leeyahayna urtu way isbedelaysaa iyadana. ka ugu dambeeya sectionkan ku eegi doono waxaa la yidhahdaa concentration. yacni concentrationku waa hadba in la cabiro heerka kaadidu ay cufan tahay ee dilutionkeedu uu yaryahay, bimacnaa biyaha yar solutiska fara badan. The specific gravity is the ratio of weight of a volume of urine to the weight of the same volume of distilled water at a constant temperature. Concentration kaadida marka la eegayo waxaa la yidhahdaa specific gravity. Specific gravity waa shay aan doonayno ku ogaano culayska kaadida inagoo garab dhigayna biyo distilled water oo aan waxba ku qasnayn, oo volume-ka kaadida aan cabirayna ay isleeyihiin, isla markaana temperature uu constant yahay. waa indicator fiican marka haddii kaadidu more concentrates ay ku jiraan, specific gravity-geeduna wuu fara badanayaa. haddii concentrate-ka kaadida ku jira uu yar yahayna specific gravity-geedu wuu yaraanaya. marka maxaynu rajaynaynaa marka hore normally qofka caafimaad qaba specific gravity-ga kaadidu in yar buu ka badan yahay specific gravity-ga biyaha. marka normal range bay leedahay. specific gravity-gu muxuu sheegayaa? wuxuu sheegayaa laba shay, ama kaadida in concentrate fara badan uu soo raacayo oo meeshu doonaba ka soo raacay, isla markaana ama kelidu ay wax qabto oo ay concentrating ability-ga maqan tahay. Concentrating ability waxaa la kaadidu inay kelidu biyana soo dayso iyo in yaroo solutis ah. Solutiska inta badan ee muhiimkaana ay jirka u reebto because of reabsorption. marka kelida lagu qiyaasaa specific gravity-ga. Specific gravity-ga kaadidu wuxuu u dhexeeyaa 1.003 ilaa 1.035, halka ka biyuhu uu ka yahay 1 uu ka yahay. marka waynu calculate garan doonaa, kadibna waan isbarbar dhigi doonaa. Specific gravity-gu marna wuu bataa marna wuu yaraadaa. waxaanu ku fiican yahay in 24-hour urine collection-ka laga qaado. bal aynu eegno certain conditions specific gravity-ga badin kara. waxaa kamid ah haddii qofku borotiino fara badan oo kaadida soo raacanaya, hadduu macaan leeyahay sonkor fara badan soo raacayso, haddii epithelial cells fara badan la socdaan, haddii white blood cells fara badan la socdaan, haddii red blood cells fara badan la socdaan, specific gravity-ga kaadidu wuu badan yahay because concentration-ka kaadida badan. xaaladaha kale ee iyagana la arki karo in specific gravity-gu uu badan yahay waxaa kamid ah yacni xaalad kasta oo kaadida crystals fara badan ama casts fara badan ay la socdaan. haddii specific gravity-ga kaadida uu yar yahay waxaa la yidhahdaa hyperstonuria. haddii specific gravity-ga kaadida uu badan yahay waxaa la yidhahdaa hyperstonuria. hadduu normal yahay waxaa la yidhahdaa isostonuria. maxaa kamid ah waxyaabaha keena hyperstonuria ama specific gravity-ga inuu fara bato? waxaa kamid ah dehydration, biyo yar, proteinuria, glycosuria, eclampsia, heart failure. eclampsia proteinuria jirta yani waa nooc kamid ah hypertension-ka dumarka uurka ku dhaca. renal stenosis, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion ama SIADA, liver nephrosis, water restriction, kuwaasoo dhan waxay keenaan hyperstonuria. waxaa jira xaaladaha qaar iyaguna keeni kara hypostonuria ama specific gravity-gu inuu yaraado. waxaad rajaynaysaa kuwii opposite-kooda. marka excessive fluid intake, qofka hadduu biyo fara badan qaato kaadidusuna biyo way badanaya, specific gravity-gu yaraanaya, bimacnaa concentration-ka baa yar. collagen diseases-ka qaarkood, qofka hadduu leeyahay pyelonephritis, hypertension, protein malnutrition, hadduu leeyahay yani polydipsia, diabetes insipidus, kuwaasoo dhan waxay keenayaan in specific gravity-gu uu yaraado. sidee loo cabiraa? waxaa loo cabiraa refractometer ama waxaa loo cabiraa specific gravity reagent strips oo ah stripka aynu ku dhigan doono qaybta dambe ee maxaan ku dhahdaa chemistry-ga. insha Allah, thanks for watching. aad baan idinku mahadnaqayaa. waxaan bilaabi doonaa markaas second section-ka videoyada casharka sharaxayana waan idiin soo raacaya haddii Ilaahay yiraahdo. Thanks for watching.